Heblaayo iyo hebel ayaa ku xantay haddii ay marar badan warwar kugu haysay ama deganaanshaha ka qaadi jirtay. Muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa ama kugu bari doonaa laba xeeladood oo kugu kalifi doona inaanad marnaba ka fikirin qof hadduu ku raado waa lagu xamanay. Ka hor intaynaan u gelin labada xeeladood, haddii lagu yiraahdo maanta heblaayo ama hebel ayaa ku xamanay, ma marar badan ayaad ka fikirtaa, sidoo kale waxaad ka fikirtaa dadka uu kala sheekaysanayay arrinkaaga. Haddii jawaabtaadu haa tahay, labadan xaaladood ayaa gabi ahaanba bedeli doona sidii aad hore uga fikiri jirtay markuu qofku xanto ama guud ahaanba xanta. Midda koowaad ayaa ah haddii wax laga sheegayo ama qofku ku xamanaya ay run tahay. Sidoo kale qodobka labaad ayaa ah haddii wax laga sheegayo ama xanta laga sheegayo ay been tahay. Si aad u fahanto aan kuu sharaxo. Haddii qofku waxa uu ka sheegay gabi ahaanba ay tahay run iyo xaqiiqo jirta, tani marnaba maaha inay ka qaado raaxadaadii ama jawigaagii deganaanshaha. Maxaa yeelay gabi ahaanba waxa uu sheegayaa waa xaqiiqo. Haddii tahay dabeecad xun, haddii tahay qalad aad hore u samaysay, tani marnaba ma bedelayso xaqiiqada iyo wixii dhacay, haddii maalin tahay iyo haddii tahay dabeecad aad adigu leedahay. Si dhow u eeg qofka caqliga leh, haddii arrintaasi ay tahay arrin jirta, marnaba ma jirto ujeedo allaaliyo ujeedo uu ugu bixiyo waqtigiisa inuu ka fikiro dhacdadaasi ama qaladku sameeyay ama hadday tahay dabeecad. Maxaa yeelay marnaba xaqiiqada waxba kama bedeli karo. Adiguna sidaas leeg xaqiiqada marnaba waxba kama bedeli kartid, balse xaqiiqadu haddii qaldanayd ama ay qaabka u dhacday qaldanayd waa mid adigu sixi karto. Mararka qaarkood xaqiiqo jirta oo run balse aynan jeclaysan oo la inoo sheego ama aynu ogaano ay nagu kalifta inaynu saxno gabi ahaanba qaladaadkii naga dhici lahaa ama arrin aynaan fahansanayn inaynu galayno oo qalad ahay. Tani qofka waxay ka caawinaysaa inuu saxo qaladkiisa. Sidaas darteed hagaaji oo marnaba ha ku mashquulin qofka sheegay arrintaasi. Qodobka labaad ayaa ah qofka hadduu sheego gabi ahaanba wax aan jirin ama naftaada aan ku saabsanayn oo uu ka been abuuranayo, tani way ka dhowdahay arrinkii ahaa xaqiiqo aad samaysay ama qalad aad hore u samaysay. Maxaa yeelay qofkani waxa uu sheegayaa gabi ahaanba xaqiiqo aan jirin ama wax aan kugu saabsanayn. Sidaas darteed ma mudna inaad naftaada uga qaado raaxadeeda arrin been ah oo laga sheegayo. Dadka qaar ayaa sameeyay in qof kastaba qanciyaan, qof kasta ugu dhaartaan inuusan gelin dambigaasi ama qaladkaasi ama inuusan lahayn dabeecaddaas lagu sheegayo. Ugu dambeyn, diintu maxay ka tiri xanta? Xanta diintu si weyn ayay uga digtay, mana habboona qofka in laga sheego arrin aan jirin ama si kale in la xanto. Xantu waa walaalkaayo maqan oo aad ka sheegto wax uu dhibsanayo, ama ha ahaato arrintaasi xaqiiqo jirta ama ha ahaato arrin aad kaga been abuuranayso isaga. Allah subhanahu wa ta'ala suuradda Xujuraat waxa uu ku leeyahay: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. haysbasaasina hana isxamanina. Miyuu midkiin jecel yahay inuu cuno hilibka walaalkii oo meyd ah? Waad karahiyeysan lahaydeen. Sidan ayaa Allah uga warramay xantu iyo dhibaatooyinka ay leedahay, taasoo lagu qiimeeyay ama lagu qiyaasay inay tahay hilibka walaalka oo meyd ah oo aad cunayso. Marka xigta ee aad maqasho hebel ama heblaayo ayaa ku xamantay, labadan arrimood hortaada keen. Arrinta uu sheegayaa miyay tahay run? Hadday tahay run, sax qaladkaasi horan uga soco. Balse hadday tahay been, naftaada hal daqiiqo ha ku lumin inaad raaxadeeda ka qaado. Xasuuso labadan jumladood. Hadday tahay run, hagaaji, balse hadday tahay been, iska dhaaf.